Soomaaliya mudane Dr. Xasan Maxamuud mudane madaxweyne soo dhow. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بدونك لبدا أقل يحبناها لبدا قلة برلمان كفدرالك الصومالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد وين أي إيتهاي إن المنطقة إذا كلا سوق يبقى فريتانك كالفرق اللحاد برلمان كجمهورية فدرالك الصومالية حق بدونك يحبناها لبدا قلة uga mahad celinayaa hawshii baaxadda lahayd ee uu baarlamaanku soo qabtay shantii kal fadhi ee la soo dhaafay si gaar ah kal fadhigii shanaad oo baarlamaanka ku shaqeeyay muddo dheeri ah iyaga oo tixgeliyay codsigaygii iyo ahmiyadda hawsha in hortaallay xilligaas waqtiga dheeriga ah ee aad hurteen waa kan suurtageliyey inaan u jihaysanno dhanka doorashada qof iyo cod maanta iyadoo lagu shaqaynayo sharciyadii aad ansixiseen iyo hay-adihii aad abuurteen idinku guddoonka labada aqal mudanayaal iyo marwooyin waxaan jeclahay inaan idinla wadaago xaaladda dalkeenna ee dhinacyada amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo geedi socodka siyaasadda intaba waxaan weli sii joogtaynaynaa howlgalladii aan dalka ka wadnay ee xoreynta iyo la dagaalanka argagixisada khawaarijta ah ee nabaddiidka iyo dowladdiidka ah waxaa alla mahadi ah in dhammaan goobihii laga xoreeyey cadowgu ka quustay in uu mar kale dib ugu soo laabto iyada oo khawaarijtu samaysay isku dayo badan oo ay ugu dambeysay tii daraad balse alla mahadiis aanay dhagartoodu u hirgelin waxaa mahad iyo bogaadin u soo jeedinayaa ciidamada qalabka sida iyo xoogaga difaaca shacabka ee naftooda u huray adkaynta nabadgelyada iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed waxay hureen naftooda way ku dhaawacmeen wayna ku dhinteen ayagoo weliba ku nool duruufo adag oo dalkeenna tabartiisu ay aad u hooseyso meelaha qaarkood waxayse doorteen inay soo celiyaan karaamada ummadda Soomaaliyeed ayna u maraan waddo kasta oo lagu xaqiijinayo karaamadaas soo noqoshadeeda dhammaan degmooyinkii la xoreeyey waxaa ka abuurantay nolol cusub waxaana u bariyay waa cusub waxaa dib looga furay dugsiyadii rugihii caafimaadka masaajidii iyo adeegyadii biyaha iyo korontada oo muddo ku dhow 20 sano ummadahaasi ay ka caaganaayeen deegaanada qaar waxay yeesheen garoomo ay ku degaan diyaaradaha garoomo ciyaaraha ah oo ay dhalinyaradu ku cayaarto arrimahaas oo argagixisada markii hore ay mar walba ay u diidanayeen waxaa mahad weyn iska leh madaxda maamulada dowlad goboleedyada hay-adaha dowladda waxgaradka culamaa u diinka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada ee u istaagay xasilinta deegaanadaas kadib xoreyntii iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka ee na garab istaagay ayagana sidoo kale waxaan sii kordhinay dadaalada dib u dhiska iyo qalabaynta qaybaha kala duwan ee ciidamada oo ay ka mid yihiin ciidanka badda
iyo ciidanka cirka kuwaas oo aan u diyaarinayno in ay ku filnaadaan difaaca badaheenna iyo hawadeenna intaba. mudanayaal maryo waxaan u mahad celinayaa dowladaha ay Soomaaliya saaxiibka la tahay ee hiil iyo hooba la garab istaagay dhismaha iyo qalamaynta ciidamadeena qaranka gaar ahaan dowladda Mareykanka oo mar walba si buuxda loo garab taagan haddii ay tahay dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan iyo haddii ay tahay dagaalka aan khawaarijtu kula jirno. sidoo kale dowladaha kale ee saaxiibada